قفك مالك حرام تأه عادة كدك تأعنا صدح عقوبة يا هيسته عقوبة الدنيا أيو الله كل مياه عقوبنا قبرك وكل كل مياه عقوبنا آخرة أي سجيس سفي عنه لجيس هذا لالوش قادتي هذا رشوة قادتي هذا الحول بينكو قادتي ده حوله هذا الوحنا صح هين ده كوقري سوكو خيانتي هذا بدجيس صدح عقوبة أياك سجاي الدنيا عقوبة كوكو سجيس عقوبة داسي الدنيا وحويان إن إلهي مالكي سخساري يو باب إيوه مالكي بقى جبنا هي إلهي بقى ترتره هي بركتي بقى لقى قاضية وحي وابديه نعفنا مله وحي وابديه عدينا مضيقان إلهي سبحانه وتعالى إنه كل جزء كاترتره يا إن وحويان أذوق عندك وهاي سيدا أتشدي وكديق ويا بركة لقى قاض waxay kala noqon kartaa cuquubada adduunyadu cuquubatan fi jasadi cuquuba ilaahay jasadkaaga iyo xibnahaaga ilaahay ku salido ilaahay inuu cudur kugu salido ka kici weyn ahalkaaga ilaahay inuu ku salido wax alla wixii xaraan aad daldalaysay waxayba kaaga dhamaanayaan isbitaal iyo dawo iyo diyaarad inaad ku raacido caafimaad ku raadis bay kaaga dhamaanayaan cuquuba ilaahay baa ku haysta nin ayaa wuxuu ahaa nin xoolo badan dadka qaaday xoolihii uu ka qaadayna ka khiyaanay daaro badanna ka tabcaday markii dambena cudur baa ku dhacay meel kasta ayuu aaday oo maray dawadiisa wax sheega la waayay wax allaaliya wax dawadiisa sheega waa la waayay meel kastana waa ka raadiyay dawadiisa inuu xoolahan xaaraanta asagu dadka dhacay oo khiyaanina waa ugu yahay cudurro ayaa kugu dhacahaya haddaad xaaraam aad qabtid oo ogow ama ahalkaagaad ku bixinaysaa baabi'inaysaa cuquubada qabriga wuxuu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam waxaa jiray maalintii khaybar nin addoon ahaa oo saxaabi ahaa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam u khidmaynayay meel baa inta la degay markii laga soo dagaalkii khaybar uu dhacay oo qaswadii khaybar waxa weeye xoolo badan laga qaaday gaaladii ayaa ninkaasi wuxuu qaatay midcam ayaa la oran jiray wuxuu qaatay go' ka mid ah xoolihii qaniimada ahaa go' ka mid ah ayuu qaatay oo wali aan la qaybin intaan la qaybin buu la fiicnaado qaatay asagoo jooga ayaa waxa weeyaan waxaa ku dhacay leeb iyo gantaal cadowgu soo riday baa ku dhacay markuu ku dhacayna waa dhintay waa saxaabi nebigu u khidmaynaya sala allahu calayhi wasalam gaalo ayaa dishay intaasaa iskugu darmay markaasay saxaabadii waxay yidhahdeen hanii'an lahu aljanna hanii'an lahu shahaada ninkaani waa nin ahlu janno ah oo janno helay weeye waxay ugu boogaadinayaan oo ku faraxsan yihiin inuu cadowga gacantiisa uu ku dhintay saxaabina uu ahaa nebigana khaadim u ahaa janno ayuu saas ku helay bay yidhahdeen shahaado ayuu hela ninkaas nebigu markuu maqlay buu yidhi kallaa maya والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه النار إلهي بان كدارت له مرضي قاضي مالنتي خيبر intaan la qaybin ka hor uu qaaday go'i ayaa qabriga dhexdiisa ku gubanayo ku holcahayo ayuu ku naarayo ku cadaabaya ninka sidaas ahaa qabriga ayaa lagu cadaabaya asagoo fadaaishaas oo dhan leh ayaa qabriga lagu cadaabaya
go uu qaaday baa lagu cadaabaya dadkii markii ay maqleen ayaa qof walba intuu naxay oo argagaxay ayuu wuxuu hayay soo qaado iska keenay saxaabada rag baa waxay keeneen shiraaguna waxa weeyaan kabta suunkeeda weey kabta suunkeeda meesha hore ah laba suun ama hal suun ayaa saxaabo qaaday ay iska keeneen oo yiraahdeen waxaan wax lagu baxsanaaya ma ahaba markay nabiga u keeneen baa nabigu wuxuu yiri shiraakun aw shiraakaani min naar waa suun naara ama waa laba suun oo naarahay ogaada aad qaadeen hadayna iska keeni lahayn naar ma ku guban lahayd waa go dhowr dirham jooga ayaa saxaabi dhan waxa weeyaan cuquubadii qabriga u qabsatay maxaad u malaynaysaa leeyla wa nahaaran ragga laaluushka guranahaya hay-adaha khiyaanahaya wax ummad loogu soo dhiibay oo la yiri siiya leylan wa nahaaran aanu aabayeelahay maxaad u malaynaysaa kuwa codadkooda beenta ku iibsanahaya oo caqligooda iyo xikmadoodu ay noqotay waxay halkaa kaliya mariyaan maxaad u malaynaysaa kuwa waxa dhacay dawooyinka dhacay ummadda u keenaya maxaad u malaynaysaa kuwa dhaqaatiirta ah oo digtoorada ah oo faalsada ah waxba aan aqoonin oo waxaynan aqoon ummadda ku dabiibayo sanka u gelinayo maxaad u malaynaysaa kulligood waxa ay jamcinayaan oo aruurinayaan waa xaraam dadka waxooday baadil ku cunayaan mana baxsanayaan ogaada ilaahay agtiisa cuquubadaasi adduunka waa haysataa qabrigana waa ku sugaysaa qiyaamana waa ku sugaysaa ama qiyaamaha wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam ya ka'ab ibn ujra ayaa nabigu la hadlay innahu la yarbu lahmu nabata min suhtin illa kanat an-nar awla bihi ma jiro qof hilibkiisu ku barbaaray xaraan qof xaraan ku koray ma jiro illa waxa weeyaan naarta ilaahay uu ku haboon yahay oo qiyaamaha naarta ilaahay baa looga goynaya ama xaraan ku naaxo ku cayil ama ilma ku korso ama dabaqiye daara ka dhiso ama umada sun u keen ama mukhadaraad iyo darooga ka iibi kulli waxa sugaya cuquubada qabriga tii aakhira sugays kulli waxa oo ku sugays qofka xaraamta cuna waxa lagu cuquubeeyaa adduunyada ducadiisa lama aqbalo nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ilaahi wa tayyib wa wanaagsan ya wax aan tayyib ahayn ilaahi ma aqbalahay wax aan wanaagsanayn oo aan tayyib ahayn ilaahi aqbali maayo markaas nabigu wuxuu ka sheekeeyay nin musaafir ah oo booraysan oo basaasan oo ilaahay baryayo gacmaha kor u taagaya oo oranaya rabbi ya rabbi ya rabb ducadiisina aan la aqbalahayn waa musaafirka ducadiisa waa mustajaaba waa la aqbala qofku markuu basaasan yahay oo dhibaatadu ay ka muuqato asbaabaha ducada looga aqbalay kamita markuu gacmaha kor u taago ilaahay uu baryahayana asbaabaha lagu aqbalay kamita gacmaha in kor loo taago laakiin lama aqbalin nabigu wuxuu yiri mat'amuhu haram wuxuu cunahayaa waa xaraam ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام هذو حرام عني أو حرام عبي أو حرام دوب صدي فأنا يستجاب له سيدو على الله أقبليا أسقى بحجاب كوجو يدعاديس مركز توحى لقيا إلهي بطوق يسا دعاء هذين أركي ميس ويدي سدي ما ورا على واحد عنتد ماشي أي كي ماذا يا واحد أيين ميس ويديس والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رجل شاقة وقال الرجل اسكت ضبالنا يا حاران ومالك إلهي دح ضبالنا يا حق لعانكم دح ضبالنا يا مالك عامك أي دح ضبالنا يا مالكاسي waa caam ama ha ahaada mid umada dhan ka dhaxeeya ama mid shakhsi gooni u leeyahay yatakhawwaduna fi maal illah maalka ilaahay bay ku tasarrufayaan bigayri haqqin haq la'aan bay ugu tasarrufayaan
فلهم النار يوم القيامة بقى النبي صلى الله عليه وسلم نار بيليهن قيامها رقاس نار أي ليه دتكاس النار أي قيامها ليه بل وحاس في رسالة صحابة النبي إيا دتكي سلف الصالح تابعينتي يتابع تابعينتي دقن كودو سيدة تنميوها ما هي عمر بن الخطاب وحو ليه كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام حلاشا لفتيجا طبعا مرك الله دغو سغال كميده han ka tageynay waa xalaal toban baa u qaybinayna sagaal kamid ah han ka tageynay maxaan oga tageynay inaan xaraan ku dhacnaa ka baqayna intay xaraan soo dhawaan lahayd xalaashan oo dhan ka tagayay noo ahaan jirtay Abdullah ibn Mubarak wuxuu yiri li an arudda dirhaman min shubhatin hal dirham oo shubha ah oo xalaalnimadkiisa shaki iga galay in aan diido oo iska tuuro ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi 100,000 waxaan kaga kalsoon oo ka jeclahay inaan sadaqaysto 100,000 oo dirham inaan sadaqaysto oo xalaal ah 100,000 oo dirham oo xalaal ah inaan sadaqaysto ya hal dirham oo aan ka shakiyo inaan tuuro waxaan ku kalsoonahay halka dirham oo aan ka shakiyo inaan tuuro ayaan jeclahay سفيان بن عيينة وحديه جري من أنفق الحرام في الطاعة فهو كمن طهر الثوب بالبول قفك حرام بحين يوكب بحين يطاعة إلهي مساجد بو كل سيا دكسيو كل سيا حجكي بو كآليا صدقاء أيو كدقنا هيا ومساكين تصيصتا أيو صدقاء سنيا وانا حرام وحول لمذي هاي قفك عسي قف مرادك هيا oo oranaya kaadi baan ku daahirinaya maradan kaadi wala yutahharu athawb illa bil maa maradana lagu ma daahiriyo waxaan biyahay wadam la yukaffiruhu illa al halal dambigana ma tirtiraayo illa halal mooyaan qof maanta oo dhan mara daahirinaya oo kaadi ku daahirinaya miyay soconaysa waxa uu bixinayo xaraamta oo leeyahay taacad ilaahay baan ku bixinaya taas ayay la mid tahay وإن أجانا ولا ليال إمسان عني كرنا حرام هين كرنا مركا أدوه كدمة تلو كتكتد المها قاعدته هذا حرام كماها صير رمان بيقول تصرفايا أديك أنا عقابته دي عذاب كل وقايستا أيقونا سي الله لي سيدا أي رمان بيقول تصرفايا أنت مال كاسي سي صعدنا أو باقي سي هينا وحويان دم بيجي قبرك أيوك وصعدا قيامنا وكسوق هيا وحويان فخر كعر حارنا وقعد إلهي أكتي سوحا هذا اللي قمر ذكره إلا طاعة إلهي مويان فاتقوا الله وأجملوا في الطلب إلهي كعر صدى أيها النبي يقولي وقابك وحد البيسان قرحية طريقة وحكر هذه الإنسان طريق قرحونا أهات وحا أكشك يسيد محلال باما سوى حرام أهل العلم قويديه هكذا بخيل اسكهو بصو ما تأيا الدنيا شوكتا ما تأيانا بنانك بركتا وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم وقال قفك إذن كم إذا يينن كحنبار رزقي أو ضاه صدي إنه طريق حارانا كرادي فإن ما عند الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته إلهي أكتي سوحا أهاري طاعتي سايا لقول هذه طاعة إلهي بالقول هذه لقول مرة هذه طريق حرامة إسكده وحلنا يقفك السيجار كقضاء والسيجار كقنا عصنا هيا إلهي هكذا يقوى الصن وأنا حرام ضرر إيا مصيبة أيو ليهي خبائث أيو كمدي هي إلهي يقول توبتك إلهينا وحن كوي دينينا هداد ما أنت قرآن كقالتد وإلهي يقول توبتك أنتد إلهي مالك لأنه كادقه وإلهي غني كادقه نينك شاتك قلا وفساديي ومدعاس دن بابيي ونلوشودي عافمات كودي دقالودي كو قباري وحن لنا انت هكاكات إلهي يقول توبتك
waxaan kuugu ducaynaynaa faraj fiican oo xalaal dayiba ah oo aad sadaqaysan kartid oo aad xajka ilaahay ka aadi kartid oo masaakiinta aad siin kartid oo masaajid ka dhisan kartid ilaahay subxaanahu wa tacaala bedel khayr qaba oo degdega allaha ku siiyo ee maanta ka toobadkeen ninka laaluushka qaadanaya midka hay-adaha ka dhacay masaakiintii lagugu soo dhiibay u celi bedel khayr qabana ilaahay ha ku siiyo subxaanahu wa tacaala اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.